بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. مقعي هو عبد الولي عبد الله عبد قيله أبو أنيال اسمه الله يقولنا نيسا waxaan halkan doonaya anigoo ka wakiila jaaliyada inta naga maqan galabta jaaliyada UK beelweynta garxajis anigoo ka wakiila waxaan doonaya halkan inaan hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin uga diro shirweynihii ka qabsoomay buurta gacan libaax ee beelaha beelweynta garxajis ay ku qabatay aan loo kala maqnayn haday siyaasi tahay iyo haday madax dhaqameed tahay iyo haday aqoonyahan kala tahay iyo haday qurba joog tahay iyo haday tahay qulqul joogba shirkaas oo go'aamadii ka soo baxay ay ahaayeen qaar xalgala qaar waxa la yiri waxa umusha u dana ba ilmaha u dana qaar u dana beesha beelweynta garxajis guud ahaan Somaliland dawladda qodobada ka soo baxay shirkaas oo qaar lagu toosinayo waxa la leeyahay wixii 27 sanadood ee Somaliland jirtay inaga qaloocday oo ku soo maxaan ku raahday sidii looga wada qayb gali lahaa maxaan ku raahday lahaanshaha Somaliland qeexaya waxaan ugu baaqayaa bulshooyinka Somaliland iyo xukuumadaba in loo dhigo duglaado qodobada shirka ka soo baxay oo qof kasta oo la xajecelaynaya ama la xajecel ka haysto Somaliland oo go'aamadaas sidii loogu dhaqan gali lahaa oo garanayay in u soo jeesto oo maxaan ku raahday ka hawlgalo waan salaamayaa dhammaan Somaliland meel joogtaba guud ahaan gaar ahaan waxaan salaamayaa shirkaas iyo intii qaban qaabisay intii ka qayb qaadatay madax dhaqameedkii iyo raggii maxaan ku raahday inay shir gudoonka ka ahaa dhammaantood hambalyo iyo maxaan ku raahday salaan iyo bogaadin baan halkan uga dirayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tilaabo bismillaahir rahmaanir rahiim halkan magaalada London waxaanu isugu nimi oo halkan aanu doonaynaa inaanu taageero mug iyo miisaan laba uga gudbino shirka ka qabsoomay buurta gacan libaax ee ay isugu yimaadeen beesha garxajis waxaanu halkan aanu doonaynaa inaanu hambalyo iyo salaan uga gudbino sidii quruxda badnayd ee shirka looga soo shaqeeyay salaadiintii iyo siyaasiyiintii iyo baayacmusharkii iyo waxqaradkii sida habsamida ah shirka u qabtay shirkaasoo ujeedadiisu ay ahayd in lagu toosiyo wixii ka qaldamay Somaliland oo ah wixii la wada lahaa oo cid gooni ay iyadu u tashatay marka waxaan shirka aan ku taageersanahay go'aamada ay ka soo saareen ee lagu toosinayo Somaliland waana mahadsantii bismillaahir rahmaanir rahiim اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا محمد waxaan joognaa UK waxaanu ka mid nahay qurba jooga beelweynta garxajis waxaanu halkan hambalyo uga diraynaa shirka ka qabsoomay buurta gacan libaax waxaan leenahay cid kasta oo shirka waqti gelisay cid kasta oo dhaqaale gelisay cid kasta oo nafteeda u hurtay waxaan leenahay waa mahadsantiin waxaan leenahay go'aamadii ka soo baxay shirka waxay ahaayeen go'aamo gees ilaa gees anfacaya Somaliland go'aamada waxaanu leenahay Somaliland siday u dhan tahay ha ku qayb qaadato oo hal fuliyo go'aamada xukuumadana waxaan kula talinaynaa inay samayso dhiiranaan geesinimo iyo wasiirka Somaliland oo ku xidhan qodobada salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan saboorayna taageersanahay shirweynihii ka dhacay buurta gacan libaax ee beelweynta garxajis shirkaas oo aan u aragno shir lagu toosinayo dowladda Somaliland iyo ummadda reer Somaliland wixii ay ka baqan yihiin saamiyo ama arrin waxaanu leenahay intaan u mahadnaqaynaa dhammaan dadkii hawsha ka soo shaqeeyay ee ahaa guddiga qabanqaabada Shiid Jaambiir hadda gude iyo dhammaan salaadiintii iyo dadkii kale hawsha waday waxaanu kaloo mahadnaqaynaa qurba joogii iyaguna gacanta ka geystay dadkii ka shaqeynayay meesha madasha maqran sayidka ay ku kulmayeen ee buurta gacan libaax reerkii gaar ahaan Muuse Cabdulle reerkii martigeliyay intaasoo ummada oo kumaankuna
oo hawshoodii ka soo baxay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaan nahay qurba jooga beesha garxajis waxaan taageersanahay shirka aad iyo aad baan u taageersanahay waxaan u leenahay hawsha hawl wacan baa qabateen somaliland waxaa kusoo dambaalaysaan insha allahu tacaala wada lahaanshihi aad iyo aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مختار محمد فرح waxaan halkan shirkan jaraa'id qabanaya baaqan soo jeedinaya kuna taageeraya shirka ka dhacay Buurta Gacan Libaax ee beelweynta Garxajis shirkaas oo waqti badan galay juhdi badan galay dad badan oo aqoon-yahana iyo oqaashii reerka salaadiintii aqoon-yahankii waxgaradkii iyo cid kastoo aqli saaxiib ay isugu timi shirkaas waxaan ku hambaleynayaa 7 qodob ee ka soo baxay iyo kuwa xeer hoosaadkaaba dhamaantood waan hambaleynayaa